Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhageysta waa isku aragtay xanuun casiraad wata kaana qabta dhinaca gadaale ee feeraha hoostooda. Xanuunkaas waa mararka qaar hore u soo wareega caloosha dhinaceeda soo raaca ilaa gumaarka sida sawirka ka muuqdo. Xanuunku markuu ku hayo labo iyo matag ma isku aragtaa. Kaadida midabkeeda ma isbedela oo sidii shaah rinji ah ma u ekaadaa. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Ciladan waa dhagxaanta kelyaha gala, afka qalaadna lagu dhaho kidney stones ama renal calculi, taasoo bulshada aad ugu badan laguna qaldo xanuuno kale. Dhagxaanta kelyaha galo ma ahan wax meel kale ka yimid, laakiin jirka ayaa sameeyo. Waxyaabaha ugu badan ee laga sameeyo waxaa ka mid ah maadooyinkan soo socda. 1. Maadada calciumta waana nooca ugu badan. 2. Maadada uric acid waa nooca ku xiga. Badanaa waxaa dhagxaantan lagu arkaa dadka qaba xanuunka turqaha, afka qalaadna lagu dhaho gout, oo aan maalin dhaweyd ka soo hadlay. Fadlan casharkaas ka soo daawa bogga. 2. Maadada struvite. Dhagxaanta noocan waxay badanaa ku samaysmaan dadka qaba haddana aan iska daaweynin caabuqa ku dhaca kaadi mareenka. Horey ayaan uga soo hadlay casharkan ee fadlan ka soo daawa bogga. 4. Maadada cystine. Dhagxaanta noocan ah waxay badanaa ku samaysmaan dadka qaba xanuunka hiddaraaca ah ee loo yaqaan cystinuria. Astaamaha la dareemo markuu dhagaxa kelyaha ku samaysmo waxaa ugu horreeya xanuun casiraad ah, kaasoo kelida ku ekaan kara ama raaci kara tubada ilaa kaadi heesta. Xanuunka waxaa mararka qaar laga dareemaa xubinta taranka ilaa cajarada. Kaadidu way isbedeshaa oo casaan ayay noqotaa. Mararka qaar way soo urtaa. Waxaa la isku arkaa matag iyo labo. Hadduu dhagax la socdo caabuq, waxaa la dareemaa qandho iyo qarqaryo. Sidoo kale qofka oo dhowr jeer musqusha kula laabta isagoo kaadi heesta aanan faaruujin karin. Mararka qaar hadduu dhagax yar yahay ama dhaqdhaqaaq uusan samaynaynin, waxaa laga yaabaa inaadan xanuun dareemin oo iyadoo waxyaabo kale laga baarayo la arko. Badanaa dhagxaanta waxaa lagu arkaa dadka da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 50 sano jir. Rag ayuuna ku badan yahay markii dumarka la barbar dhigo. Waxyaabaha kordhiya jaaniska in dhagxaan kelyaha ku samaysmaan waxaa ka mid ah 1. Fuuqbaxa sida shuban iyo matag muddo soo socday. 2. Cayilka. 3. Xanuunada jirka ku badayo calciumta iyo dadka joogteeyo qaadashada calciumta. Fadlan bogga ku laabo oo soo daawo muuqaal aan maalin dhaweyd kaga hadlay dhibaatooyinka ay keeni karaan joogteynta qaadashada fitamiinada iyo macdanta qaarkeed. 4. Dadka qaba kacsanaanta qanjirka parathyroidka. Ogow, parathyroid waa 4 qanjir oo yaryar oo ku yaalo qanjirka thyroidka gadaashiisa. Wuxuu alla ugu talagalay inay xakameeyaan macdanta calciumta. Hadday xawli u shaqeeyaan qanjiradaas, waxay jirka ku badiyaan calciumta, kadibna dhagxaan ayaa jirka ku samaysma. 5. Qaadashada daawooyinka qaar sida kaadi badiyaasha qaarkood, daawooyinka qalalka iyo sharoobooyinka laabjeexa loo qaatay ee calciumta ka samaysan waxay kordhiyaan jaaniska in dhagxaan jirka ku samaysmaan. Sidee loo baaraa ciladan? Waxaa muhiim ah in lagu wareysto, lagu wiisiteeyo, kadibna haddii laga shakiyo in dhagax kelida kaaga jiro in ultrasound lagu saaro, kaadida la baaro, shaqada kelyaha la fiiriyo. Sidoo kale haddii loo baahdo, dhiigagga maadooyinka dhagxaanta ka samaysma in laga qaado. Hadduu ultrasound-ka tilmaamo astaamaha dhagxaanta sida kelida oo cabursan ama bararsan, laakiin dhagax uu arki waayo, waxaa laga yaabaa in lagu diro raajada casriga ah ee CAT scan. Sidee loo daaweeyaa dhagxaanta kelyaha? Waa muhiim haddii dhagax lagugu sheego in la ogaado inta xabo uu yahay, cabiradooda iyo meesha uu kaga jiro kaadi mareenka. Tan waxay xadidi doontaa qaabka lagu daaweyn doono. Tusaale ahaan, hadduu dhagaxa ka yar yahay 4 mm oo u dhiganta 0.4 cm, jaaniskuna soo baxo keligiis aad ayuu u badan yahay, weliba adigoon daawo qaadan. Waxaa laga yaabaa inaad dareentid xanuun aan badnayn markuu soo baxayo, wayna dhici kartaa in lagu siiyo daawooyin kugu caawiyo soo bixitaankiisa. Laakiin waxaa muhiim ah inaad cabtid biyo badan, ugu yaraan 2 litir maalintii. Hadduu dhagax cabirkiisu u dhaxeeyo 4 ilaa 6 mm oo u dhiganto 0.4 ilaa 0.6 cm, way adag tahay inuu si dabiici ah u soo baxo keligiis. Waxaadna u baahan doontaa in daawo lagu qoro si loo soo bixiyo ama loo burburiyo. Hadduu dhagax cabirkiisu ka weyn yahay 6 mm oo u dhiganta 0.6 cm, waa dhagax weyn, xanuun siyaada ah ayuuna keenaa. Badanaana kelida ma soo dhaafo maadaama tubada uusan soo geli karin. Kan wuxuu u baahan yahay in la toogto si loo burburiyo ama qalliin lagu soo saaro hadduu aad u weyn yahay. Waa muhiim in biyo cabitaanka aad badsatid si aad uga hortagtid ciladan. Sidoo kale haddii aad la nooshahay xanuunada lala xiriiriyo dhagxaanta kelyaha gala ee aan kor ku soo xusay, waa in laga daaweeyaa. Ogow, haddii aad badsatid cunooyinka qaar dhagxaan ay keeni karaan sida hilibka la warshadeeyay processed meat, cunada diyaarsan ee la barafeeyay frozen meals, cunada caafimaadka u daran ee loo yaqaan junk foods, cunada fudud ee la cusbeeyay ee salty snacks. Intaba dadka joogteeyay qaadashadooda dhagxaanta kelyaha ayaa badanaa lagu arkaa. Halkan ayaa kusoo gabagabeynaya casharkan. Wixii su'aalo ah fadlan noogu dhaaf qaybta commentiska. Waana mahadsantihiin.